وحيكون مهماهن يا أف ولم تابك بأي تاشم أفكو قعنتو هدايكم مركعته ولا سوء عليا هالكيدي ولا سوء عليا أفكو هدو كام ركعة كور ما سوء علين كرتي ما كي بريقا سيدان نيرون بعد نقول أدنى واحد كو حيقون سيدا ولا ما تشيدين مركا تحت عرورتها بديل لي يا عبو هويني عرورتها مركا يراد برديهين عيرة أدو عرلينا عير داي واشيم وهذا الكاغو دادك يسكدرو واعب مركا هروان دين سلامية لابتوب كوين هكن عنا واشان دقيقون لابتوب كوين هكن حنا marka hore aad iyo aad baan idin salaamayaa salaanka bacdi waxaan doonayaa maanta barnaamijkan inaan kaga qayb qaato in yar oo 5 daqiiqo ah wax la yiri waqti gaaban hadalkeedna kulay iska kooban waxaan doonayaa inaan kaga qayb qaato waxyaabahan la yiraahdo social media gu dhibaatooyinkan uu bulshadeena ku soo kordhiyaan in yar kaga hadlo waxa weeye amba youtuber de amba facebooker de amba tiktoker de amba everythingism whatever it is aad adeegsato waxa weeye qowlku amba hadalku nimcooyinka ilaahay nasiiyay buu diiniyan kamid yahay oo allamahu albayan inaynu luqada ku hadalo ilaahay wuu inagala xisaabtami doona waxaan insha Allah taala ka hadli doonaa suugaanta Soomaalidu amba ragii gabi jiray amba oraahda lahaa taariikhda lahaa siday uga digtoonaan jireen suugaantu waa shay qofku dareenkiisa uu ku muujiyo marka diiniyan buu noqon karaa dagaalamo noqon karaa heshiiyo noqon karaa weeraro noqon karaa dhiiga daadiyo noqon karaa nabadda ku sugu noqon karaa whatever it naamnimba dareenkiisu halku yahay buu ula kaca marka wuxuu yiri Ibraahim Gadle Allah u naxariistay wuxuu yiri maanso inuu kugu duul ninna maalin kugu dood ninna dooni kugu doon ninna darajo ka dhigay ninna nabarka kugu damaq ninna dakharka kugu dhigay ninna nabadda kugu dayr ninna ololka kugu dami ninna nabadda kugu didi ma insoo duciya khayr nimbadawgu kula rabo dareenkiisa kugu mari waxa weeye xaga khayrka in loo xagaliyay marka inaga teenu tahay waxa weeye wuxuu doodaan Allah u naxariistay afxumada ummadda hadallada nacaybka ah ee turxaanta dhexdhigaya ee cadaawada dhexdhigaya ee nacaybka dhexdhigaya ee ummadda iska horkeenaya ummaddu inay dad walaal ah noqoto ee midnimadeeda wiiqaya waxa weeye hadalladan turxaanta leh ee lagu faafinayo social media go'ay marka youtuberadu shar inta like iyo share badan ku raadinayso ilaahay hada khayrna waa kugu rasaaqa naam khayrkuna waad u adeegsan kartaayo intaaba ilaahay inna allaha yarzuqu man yashaa sawma ilaahay waa kugu rasaaqa shar'un waxa ku weydiisanin youtuberada maanta halkan waxaan ka leeyahay walaalayaal ilaahay wax khayr qaba aynu ku weydiisano ummadana wax khayr qaba oo anfaca aynu ugu faafino dareenkaygu weey wixii doodaan Allah u naxariisto abwaankii weynaa wuxuu kuma daro naxwaha laangariyo weer la leemale xoolaha qura looma sahamiye kelmadda ka soo yeedhaysa waa loo sahamiya hadayna ummadda anfacaynin oo ina ummadda wax u taraynin hadalkaagu waxa wanaagsan inaad ka aamusnaato ta kale wuxuu yiraahdaa raawi Allah u naxariisto gabagiisii sirta nolosha waxa ku jirtay garashadu sahray ruuxa sad u gaara weeyaane hadduu saamiga yeeshay qurux male saluugeedu dadku siiga diid maaha sogob iyo riweyn maaha sumal iyo laxdiis maaha rati iyo sabeen maaha falka iyo sugnaantiisa socodka iyo abraartiisa dhaqan sida xishoodkiisa dabar iyo silsilad haysa iyo suun ma dhaafaan ah wuxuu soofka xoolaaba kaga soocan yahay weey ixtiraamka iyo isqadarinta iyo wada noolaanshaha xoolaha maxaynu kaga duwanahay diiniyan waxa weeye dadku haday dariiqa ilaahay ka baydaan xoolaha iyaga ka baadisan raadinta xoolaha waxa ka adag ibn aadan in la soo raadiyo marka waxa wanaagsan inaynu arintaas ka digtoonaano haba ka soo baxsatay youtuberka wuxuu doona ha qoro inagu hadaba inagu as ibn aadan maskaxdaadu yay noqon maqal lagu leeyahay
adigu ma sanduuq danteeda ku fushataata wixii Ibraahim galle Allah u naxariisto maskaxdaadu yay noqon maqal lagu leeyahay lagu furo muftaaxyada hadba lagu muraadsado magacaagu yuu noqon mid xumaan ka marakaca oo micin qaada haw dhiman aqligan iyo maskaxdan iyo intan adiga iska leh waxaad ku shubanayso wax adigu aad ku anfacdo ee anigu danaan leeyahay ayaan kugu fushinin ta kale wuxuu yiri tima cadde markaad doonayso inaad hadasho markaad doonayso ummadda inaad wax u sheegto markaad doonayso ummadda inaad tilmaanto hadalku intuuna ka soo bixin waa inaad muxuu u baahan yahay wuxuu yiri aqli dhowrsan iyo markuu cunaha soo taagmo arab laylyan laab culan hadii la iskatiin waayo aya iyo wuxuu ka noqdaa caws kaliishada wuxuu yiri caruurtaaba dheeldheeliga caguhu weynin caruurta markay raad barad yihiin circira ee adoo cirrale inaad circirday waa sheem oo hadalkaagu dadka isku diro waa ceeb cirranimay ku taalaan ahay oon ciirin warigii ragun baa iscayn taariya uu ka cadilaada makii barigii sidaa yiri ahmaarta tiraahda kulli Facebook geedu soo dhigi doontaan waxay ku mahmaahan ya af walam tabaqi bi ay taashim afku ee gacantu haday ku murkacato wala soo celiya halkeedii baa lagu soo celiya afku haduu ka murkacda ka waran ma soo celin kartid makii bariga sidaan yiri baad noqon adna waxaad ku xiiqin sidaa ulama jeedin marka taxadda kelmadda ka soo yeerisay in dadka hortagayno waa inaynu maaragtay ka taxadarna wixii la carab dalab le maansadu marbay kugula cirta maansadu iyo hadalka iyo kelmadda ka soo yeerisay hadaanad ka taxadarin iyada lafteeda waa laga qoomamayn doona wuxuu yiri isla timacada waxa uu yiri ma sarsaro markaan daahiro soo maansada hadalka lama sarsariigto sidiq wiilal bays kaga gabiya uu saxar ka yeesha waan hadli karaa wareeg ka tafallaga hayamta waraalij sheekawun hadii la rabo amba hadalun hadii la rabo sheeka iyo hadalun hadii la rabo de dameerku waa hadla walaalahayo ma beenba waayahay macna ma sameynaya muxuu ummadda u anfacaya qowlkan iyo hadalkan aan ku hadlaya ninna horumarku ma gaari kara hilib walaalki hadaynaan xumaanta iyo dilka iyo deynin kala qaadka dibaddan ka joognaa sharciga daacadda ilaah dambarkeedu waa jahannaba iyo dogobkii naareed muxuu yiri timacada dul iyo hoosba waan ugu dhagay waa dhagaxeed tiray qabalam we have to think wide si balaadan inaynu far wuxuu yiri sidiq wiilal bays kaga gabiya uu saxar ka yeeshay salaankiisa goortaan koro in sabab ilaalaysto subaxdan haloosiyo tixaawaan sir goyn jiray salka aniga oon meel u dhigin wali ma sii deyn ee markaan sahamiyaaban halkii sayr la mariya xoolaha qura looma sahamiye hadalkana waa loo sahamiyaa meesha ma qabtaa mise ma ku haboon yahay hadalkana waa inaan soo heeyo waxa uu yiri boodari wuxuu yiri hadaa qaba ma dhaameen hadaan hadalku toosnayn hadalka caruurtaadu muxuu kaga soocan yahay hadalkaagu ka caruurta muxuu kaga soocan yahay haduuna macna sameeynin ka caruurta waa la mid hadalkaagu wuxuu yiri hadaa qaba ma dhaameen hadaan hadalku toosnayn ha yeeshe warkaada hubin taqaan ha intaad oran intaanad share iyo 5 iyo si faafinin waxana wax ummadda anfacaya ma yahay we have to be shando daqiiqda marka daqiiqda marka dukaanka laga soo iibiyo ma qoosh baa laga wada dhigamsa shanda la qaata intii taa dhaafta imtixaanka qoosh way noqotaa intii kalena gudaafada ay tagtaa we have to be a filter hadalka intaynaan faafinin waa inaan bahalki aamusnaantu maxay tiraa Soomaalidu afdaboolan waa dahab rag baa hadalkoodii iyo gabaygoodiiba qufulay Allah naxariisto timacada kamid wuxuu yiri qorshe gabay daahirow baryahan iguma qoomayne ma qotominin maansooyinkii qarada weynaaye
quus baan ka joogsaday intaan geeshku qowdhamine waataan araartaba qafilay bariqalaadki tiri ay qabalan baa ma ka dhigay block buu saaray hadalkiisii marka waxaan dadka anfacayno dhan block waa inaynu saarnaa wixii ummadda anfacana waa inaynu soo daynaa ta kale waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex sadar oo uu leeyahay abwaankii dhoodaan allah u naxariisto wuxuu yidhi caqli gacalkii toosaa fakara nolosha toolmoon ma nashiideeya anigun caqli gacalkii toosaa fakara nolosha toolmoone maskaxta cajabkeedii batay oo tamani ooyeysa oo cadha la tiicdaaba waa taydan oo kale intaasaan ku koobay aad iyo aad baa u mahadsantihiin arrimaha bulshada iyo waxaan kaga qayb qaadanaya inaynu ka digtoonaano afxumada iyo waxyaabaha bulshada isku diraya aad baa u salaamantihiin